بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتنياهو هفريسان هنسنتي كل عضي أيا طبعا ما تحبوا خذ حيفا تلفزيون هذا ورئيسي سيانا عيدا سيكبتين لبا أرن أيو آد حق أساري لكن وحفلان خياش إيكا هلايان مد كمد أهرتوا وإسكوالي وإنزول تاقينا أرمها سمحيهين. نعم وحان قالوا كهالي دونا غزة شلي وحا كدعي أرين تاريخي واتي حماس اي تري وان كلا ديرني دولدي غزة نوغا ديسنيد لكن ما انتو وحبا دعي هدنا أرنتاس إسول تاقينا سيداس وكالي ناتو خطرت اي وجهيسو oo indhaha si toos ah looga saaray niman isdul taagayna aan ku bilowno Iran iyo Khamenei gurigii lagu dilay ama lagu shirqoolay. Telefishinka Iran iyo dhowr warbaahin ayaa waxay soo galiyeen video la saaray cod adiga codka waxa dareemaysaa calaacal inuu yahay kicin inuu yahay labadaba waxa arkaysaa oo video lagu arkaya marka dabcan sawiradiisa gurigii iyo goobtii deegaankiisa ahaa ee lagu duqeeyay sida ay u halowday meesha oo markaasi ay u burburtay bambooyinka sida uga dhaxbaxeen oo markaasi qaraxa oo u dhacay kadibna waxa ay ku tusayaan yaanihi naxashkiisa risaalo weyn ayaa ku jirta dhambaal ayaa ku jira dhambaalku waxa weeyaan dabcan Iran ilaa ay hadirtaan waxay wadaa kicin ay kicinayso in alla intay kicin karto shacab ah ee shiica ah ee adduunka ku kala nool yaani wax nagu dhuftay ma ahan kaliya ciidan iyo saraakiishooda iyo naga dilay iyo wasiir ma ahan waxaan naga dilay ruux diineed sidaas arintan wali waxa aad iyo aad uga hadlaya kana digaya xataa halista ay keensan karto hadaan Iran arinta looga garbixin khubaro Mareykan ah marka taawata macnaha videogan uu cusub yahay laakiin waxa ka horeeyay يعني تعسيده سيده u qabatay inta madaxay timid hadaladii laga jeediyay ujeedadii laga lahay wixii la midka dabcan waxay tiri hadda hadalkii shalay ay soo saarto ahaa in arintaasi dacwo rasmi ah ay ka gudbinayso dilkii loo geystay hogaamiyahooda sheekh walka yani dhinaca kale neeto halis ay wajahaysa aad u weyn halista ma ahan lacag la'aan iyo dhaqaale la'aan iyo wixii la midka ma ahan xataa xadaarad iyo cilmi iyo ma ahan halis waxay wajahaysaa dad haddii wadan uu doonaa inuu isdifaaco number 1 waa inuu helaa dad ciidamo inuu helaa kow labo waxa uu kale wajahaysaa wadanna u baahan inuu isdifaaco warshado asaga uu leeyahay uu soo saarto yani hub soo gadato lagu soo kombeeyay oo lagu soo cabiray macquul ma ahan inaad difaac ku gali karto oo aad waxa doonto isaga dhicin karto waxa doonto ku qabsan karto nacam waxa isaga celin kartaa laakiin marka ay noqoto haddaad doonayso hadaf weyn inaad adduunka u talisay inaad wax iska dhicisay iyo yani waxaad u baahan tahay waxaad in adiga samaysato almuhim wuxuu leeyahay marka Yurubay adinka ugu badan NATO waxa ku jira waana run Mareykanka iyo Turkiga marka laga tago inta kale waa iska Yurub wuxuu leeyahay marka adinka ugu badan wax warshado ah oo aad haysataan oo tiro badan oo aad ku tashateen kow malahan waana run oo dagaalkii labaad ee adduunka sidoo u dhacay ilaa hadirtaan Yurub inta badan يعني دفاعooda iyo waxay uga seexdeen Mareykanka sababta keenaysa Trump inuu macnaha sanka ka galo oo cilciilo oo bahdilo waxa saa jira yani wuxuu og yahay inside waxa ka jira gudaha Yurub ama wadamada NATO ayuu og yahay Talyaaniga intaas oo kuna ciidana u joogta Jarmalka intaas oo kuna ciidana u joogta yani ciidamadiisa wadamadii waaweynaa ay iska dhex taageen iska dhex joogan marka almuhim warshada marka Yurub aaday dabcan uga hooseysaa marka la fiiriyo Mareykanka marka la fiiriyo China Ruushka yani warshadaha sida ay ugu dadaalaan wax soo saarka difaaca marka la fiiriyo Turkiga xataa dad ogtiin yani waxa ay sameynayso waxaan caadi ahayn dhinaca kale Yurub dhalinyaradii ay ahayd inay ciidamada galaan difaaca rag iyo dumarba ayagana sidaas oo kale inta badan ma qortaan askar xirfado kale iyo wixii la mid ay macnaha yeeshaan kali inta ma ahane awalba waxa yaraa dhalida ayadoo ay yareed dadkii waaweynaan ay gabawaayaan ay duqowaayaan ayaa marka dhalinyaradii laga faa'iideysan lahaa ayaa intooda badan shaqooyin kale ay galeen military iyo difaac iyo in koobana gashay sababtaas aan arkaysa in badan UK yani shaqooyinka la xayeysiiyay aad kale waxaysi waxa kamid ah kamid noqoshada
ciidamada cirka ciidamada badda ciidamada yani bariga yani lacagaha saas lagu bixinaya adigoo fadhiya lacagtaada qaadanaysa yani aad u xayeysiiyeen sabab yani ciidan la-aanaa jirta dhalinyar la-aan yani ayaan ula jeedaa ghaza maxaa ka dhacay ghaza waxaa dhacay duqeyn weerar waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof oo ugu yaraan shalayta un ay ahayd marka xamaas inay tiri waan wareejin anaga waa iska dhiibnay wixii la midka ah waay haddii xamaas dhiibtay ghaza xukunkeeda ay duqeynta u socotaa sabab maxaa dilkan ghaza ugu socdaa soo ma ahayn xamaas hadday xukunkii wareejisay haddii kada haddii dabcan xaba joojin la galay in waxaan dhan ay joogsadaan maya ee joogsi ma jiro israa'iil way wadaa jukayntii iyo dilidii reer ghaza arrintaasoo lagu tilmaamay inay tahay nasiib darro dabcan ciddii mas-uuliyadda qaadayna laga doonaya inay israa'iil la xisaabtanto taas halkaas aan u gudbayno imaano warka xiisaha badan ee Netanyahu iyo wixii ku dhacay iyo meesha xaaladiisa hadda ay marayso marka ay maqleen israa'iiliyiinta turki ayaa laga iibinaya diyaaraddii F-35 injinadeeda matooradeeda iyo wixii la midka ah waagaa ku baryay waa shayga keliya marka laga tago nuclearka shayga keliya ay carab iyo bariga dhexe ay ku rigeysteen ay dhaheen F-35 aan haysana yaa wax naga qaadi kara anaga u sarreyn awoodda kada iyo yani keliya waa shayga keliya okay shayga keliya marka ay ayagu ku booteynayeen ayaa dowlad ay u arkaan handadaad laga iibinaya ay helaysaa weliba qalabka ay turkiga rabto marka laga tago ayadaa waxaan kaloo dhan samaysatay injinka iyo dhowr kooshay bes ay rabtaa israa'iil marka arrinta waxay ku noqotay waagaa ku baryay hal mar Netanyahu waxaa la arkay isagoo caadi telefishin dhex taagan way seen waay maxaa xaaladda meel halisay maraysaa Trump wuxuu dhahay laakiin waxay yaqaanaan israa'iiliyiinta sida muuqata falanqeyshan ay sheegayeen Trump bay yaqaanaan dawcadiisa pressurekan xooga ee israa'iil yani ra'iisul wasaaraha uu qaaday Netanyahu inuu telefishinadii dhan u tagay oo wareysi bixiyay oo xataa wax aan meesha ku jirin oo keenay Iran مثلا حتى هو كان ماشي إلى تركي F-35 ku ka dagaalamay Iran حتى kusoo diray wuxuu leeyahay Iran kiimika yani hub ay haysataa arintaasi hadii gantaalaha ay soo tuurto tusaale ahaan ay kiimikada ku soo dari lahayd ee misaalisi geysan lahayd kada yani sida inuu isku dardarsamo kale okay arinta marka ma soconaysaa mise hadalka Trump waxa laazim ah hadii qalabka la siinayo Iran macnaha Israa'iil waxaan ula jeedaa Turkiga ma kongareeska taa laazim inay soo ansixiyaan kada maya awoodaha uu leeyahay madaxweynaha ay ka mid tahay oo kooban in nacam asaga arintaasi cunug qabateenta uu qaadi karo haddii marka dadaalkan uu sameeyay Netanyahu uu miro dhalo Turkiga u dhamaatay waa loo diiday weeyaan laakiin dadaalka sida haduu u sameynayo haddii Trumpna uu ku adkaysto Turkiga bahasheeda way heshay Netanyahuna qarowgiisa hadii runo isu bedelaya marka waxaa aad loogu badinayaa sida la leeyahay macnaha in ay u badnaan doonto Trump inuu ku guuleysto sababtoo ah Netanyahu hadda israa'iiliinta marka fiiriyo gudaha Mareykanka marka dambaysa awoodooda sii yaraanaysa gaar ahaan hadda maanta wuxuu sameeyay sidaas oo kale yani inuu booqday Haifa Navy base kooda yani ciidamada badda ee Israa'iil ay leedahay ayuu booqday asagoo markaas yani u goodinaya dhahay cadowgeena yani waa kaasa sawirada cadowgeena dibadda kama yeeli doono in ay badaha iyo marinada ay nagu ciriiriyaan sidaa darteeda ciidamadana heegan u yihiin qalab uu soo bandhigay ciidamadii adiga la hadlay waxay ku tilmaameen xataa mucaaradka Israa'iil hadeertaan ayuu shaqadii la rabay wadaa macnaha hadda u baraarug hadda u kacay waagaa ku baryay macnaha xaaladda ku xun Turkiga hadday hesho u dhamaatay Israa'iil awoodeedii iyo anaga sareyna iyo kada ma jiri doonto cid Allah haysata xataa Sacuudiga saa uma walwalsana maxaa la Sacuudiga waxa loo garanti gareeyay inaan heli karin yani tan ay ayaga haystaan oo kale isku magac weeyaan laakiin isku qalab maaha ama Turkiga bis motorkaasi labada shay rabta inta kale ay haysata waxaaba laga yaabaa marka falanqeeyaasha qaarkood sidii leeyihiin inay midda Turkiga ay ka sii khatarsanaan doonto xataa F-35 ka caadiga ah المهم أرنا حليس وين ويان أرنا إن شاء الله ku helayna بإذن الله تعالى wixii ka soo kordhay Ilaahay idinkiisa